salaamullaahi calaykum dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qoyskaal oo toddobaadkiiba mar hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda mustaqbal. qoyskaal waa barnaamij aynu uga hadalno arrimaha qoyska gaar ahaan qoysaska Soomaaliyeed. waxaynu hadba soo qaadanaa mowduuca aanu u aragnay inuu yahay mid quseeya ama ay u baahan yihiin inay dhageystaan qoysaska Soomaaliyeed. sidoo kale barnaamijku waxa uu quseeyaa dadka doonaya inay hadda yeegleelaan qoys cusub oo uu barnaamijku diiradda saari doonaa talooyinka iyo waxyaabaha lama huraanka ay tahay ka hor inta aanan qoys la dhisin ama la yeegleelin. toddobaad kale waxaa barnaamijka marti inoogu ah Abubakar Cadow Cali oo ah nin dhalinyaro oo arrimaha qoyska wax ka qoray sidoo kalena daraaseeyay xaaladaha qoyska Soomaaliyeed. Abubakar kusoo dhawow idaacadda mustaqbal. oo ku dhawaad waa mahadsantahay walaalkeen Axmed Cabsi. aad baad mahadsantahay. soo dhawow mar kale. Abubakar toddobaadkan waxaan doonaynaa inaanu warfayno caqabadaha hor istaaga in guri la dhiso ama la guursado ama qoys cusub la yeegleelo. marka bal caqabadahaas marka hore adigoo soo koobaya mid baynu dul istaagi doonaa caqabad kasta iyo waxyaabaha ka yimaada iyo qaabka saameynteedu intay la eg tahay. balse marka hore adigoo caqabadahaas soo koobaya waa kuwee? horta caqabadaha guurka hortaagan oo dhalinyarada badan wiilal iyo gabdho guurka hortaagan waxay isugu jiraan si guud labo oo qaar ah guurka u diidaya inuu awoodi kari waayo guurka qofkii oo xanibaya hor istaagaya iyo qaar fikrad ahaan u diidayo yacni asagii uusan diyaar u ahayn guurkii oo asagii uu leeyahay xilligan ma guursanayo ama ayada leedahay xilligan ma guursanayo. 4 caqabadood ayaan kusoo koobay. caqabada koowaad waxaa waaye qaabka waxbarashada oo ah qaabka waxbarashada yacni hoos dhexe sare jaamacad oo degree koowaad master degree qaabkaas. caqabada labaad waa dhaqaalaha oo yacni saboolnimada dadka saboolnimada daran haysto. caqabada saddexaadna waxaa waaye maxay ahayd dhaqankii oo maxay ahayd waxyaalihii guurka ku baxay haddii dhaqankiisa oo jireenka dhaqanka maxay soo jireen waxaa waaye hidaha wixii lagu soo dhaqmayo noo soo gudbay iyo wixii anaka hadeer aan samaysanay culture iyo traditional. marka labadiiba caqabada yihiin traditionkii cultureka tusaalahaan traditionka sooriyadii ama maxay dhahani yaradii oo kale tradition waaye caqabada. anaka hadda waxa dhaqanka $2,000 gabadhii laga bixiyo hotel laga tumiyo kharash fara badan. yani marka dhaqanka marka dhaa isku dubkaas waaye takoorka tan afraad u dambaysa waxaa takoor ama heybsooc ama heybsooc gaar ahaan heybsooc qayb kamid oo isma geyno oo inay ku guursado ama inay guursato ma qalantid ma dhimid qof guursan kara ama aan guursan karo oo igeeya way dhamaan waa faahfaahinana marka iyo waxyaabaha quseeya ee sida gaarka u sii taabanaya. bal waxa ugu horreysay waxbarashadu saameyn noocee bay ku leedahay inuu qofku guursado ama sidee caqabad ugu noqota qofkii inuu guur sameeyo? waxay ugu noqon kartaa waxbarashadu horta saddexdan kale waxay uga duwan tahay. ayada waxa waaye ayada laba mid bay ku timaadaa qofkii in awood tirto asigii guurku rabo awood tirto iyo in guurkii xilli gaar ah idin casiiso oo saacadan xilligan guur uma soo jeedo oo yiraahdo ama ay tiraahdo qofka wiilkii ama gabadhii markii awood tirayso waxa waaye markii wiilkii ama gabadhii la yiraahdo adoo darajo heblayo waxbarasho ka gaarin adoo bachelor degree ka qaadan ma guursan kartid waalidka markay yiraahdaan markaas qofkiina uu guur rabo markaas waxa waaye way awood tirto. marka qofkii asagoo isla leh master degree gaar ama bachelor degree gaar ayadoo islaam asagoo isla leh maxay u guursan waayena maxay markaas guurkii ay hor istaagtay. dad waxaa arkaysaa aniga xilligan shukaansi ma sameynayo waa wiil ama gabar 22 sano jirta ama jira haddana shukaansi xilligan ma sameynayo sababto guur sanadkan sanad ku xig uu soo jeedi ku leeyahay ama ay ku leedahay sababtuna ay tahay inuu rabo
bachelor degree ugu yaraan inuu qaato ama inuu rabo inuu master degree intuu kasoo qaadana uusan guursanin marka uu aaminsan yahay inay caqabad isku yihiin ama ay aaminsantay inay caqabad isku yihiin waxbarashada iyo guurka maxay ahayd wiilasha oo kale aniga buugayga Dhisidda Qoyska waxaan sheegay maxay ahayd ku sheegay gabdhuhu inay ku guursadaan 18 sano markay gaaraan iyo wixii ka badan laakiin ka hor aysan guursan 18 sano waa talo bis laakiin aan justify garanayo wiilashuna aysan guursanin 20 sano ka hor 20 sano iyo wixii ka dambeeya in wax ka dambeeyay laakiin aysan ka soo hormarin marka maxay ahayd gabdhaha waxa uu sababay xilligaas caqliyan way qaan gaarsantahay oo maxay ahayd way aragnimo fara badan nololeed dugsi sare markaas ka soo qalin jibisay maxay ahayd kalaas intaas oo arday kala duwan oo wiilal gabdho leh oo soo barnaayeen oo classmates kala duwan ahaayeen oo gabdho ay soo dhawaayeen oo qaar diris ahaayeen oo qaar saaxiib dhaw ahaayeen oo inta soo sheekaysanayeen arrimahaas dabcan marka qaar sheekada soo galeysay dareen cusub uu soo galo qofkii markii uu qaangaarnimo dareemay maxay ahayd lagana yaabay in macnaheedu xataa shukaansi dhowr sano ay wada markaas 18 sano ka jirto maxay ahayd waalidkiin wax badan uu soo sheegay hooyada inkastoo waalidiinteeni ay naas aad oo gaabiyaan khayraalaasiyo in la saaxiib gurdoonkii oo lagala shaqeeyo gursashadii marka maxay ahayd macallimiintii wax soo sheegayeen ayakana كلاس كحوس عنك كل يوم أهان إنه حسد مادة وحقوق قرن وكذا أكسينا يعني تلين كبحسن أو كومي مركي خر أكسينا مركا حياة أصلاً مركي إسكو معدن أو حياة سواين إن analytical ability كذي مركز وصعد ما يسترمه وأنا مركز حلا شف يعني سمين كرتو لكن كور حبان تاني يكون جود حلا شدي marka taas waa gabadh wiilka laakiin waxa ay yiri ku guursan 20 sano waxa uu yiri waxa markaas aan qaba uu yaraan inuu markaas jaamacad oo dhigto oo part time markaas oo shaqaysan karo si part time absolutely buugii Dhisidda Qoyska ka soo horjeeda yani waa ka soo horjeedna in wiilka asagoo aan shaqaynin inuu guursado waa ka soo horjeedna hooyo canjarisi inuu guursado waliba xataa waxa ka soo horjeednaa in buugii maxay in wiilka asagoo shaqaysan ha guursaday uu reerkii asagoo ka tirsanaa hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalkiis uu la dajiyay gabadha uu guursaday marka maxaa uu ku diiday inuu asagoo shaqaysan inuu guursado marka waxyaalaha fashilaya kamid iyo in reerka la dajiyay guurka waxyaalaha fashil marka maxay ahayd markaas uu yaraan jaamacad oo dhigtaa markaasuu oo dhigtaa maxay tahay bartaam shaqaysan kara jaamacad ma dhigta ka soo qaad waxbarashadii nasiib uma helinba maxay tahay markaas 20 sano uu jiro waa kan si waa ka fursad ugu dhow yahay kan aan wax baranayo oo shaqadan naga horayaan maxay tahay guurkana way naga horayaan way aad badan mahadsan tahay qaybtaas oo waxbarashada dabcan caqabado badan ay ka yimaadaan sida wanaagsan aad noogu soo koobtay bal markan dhaqaalaha markaynu nimaadno waa faraq ku hayntii iyo wixii lagu suuragelin lahaa gurigii taas bal caqabadaha dhalinyarada uga yimaada intay la eegta dhaqaalaha waxa waa saboolnimo zaid markii dadka ay haysato guurka ma awood kan khaasatan ragga nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu waa in ka xul ayaama minkum salihin min imaikum in yakuna fuqara yughnihim Allah min fadlihi marka aayadaas markay fasiraan culama mufassirin oo al-mu'asirin oo hadda joogta waxay ileeyihiin roolka dawladda dowrka dawladda ee Dhisidda Qoyska ee ka mid yihiin arintan inay isu guuriso dadka aan is guursan karin oo dhaqaale ahaan aan awood karin inay guurkan ka baxaan inay isu guuriso dawladda ha ogaato dadkaas aan guursan karin waa in ka xil ayaama minkum salihin min imaikum in yakuna fuqara yughnihim Allah min fadlihi in dowrkaas ay leedahay roolkaas in ciyaarto looga baahan yahay inay ogaato marka maxay dawladdu kaliya dadka muslimiinta oo haystaa oo wax baxsanaya oo dhan
دي قناعصة أهلها إنتاج بشري يعني population growth rate كعاية مركوك وبتنيو سرعة عليها تزوج الودود الولود قرصة هواينك أو مركنا إنما دالي تانك بدن أو أنا جعلك بدن من جعلك بدن إنما تانك دالي تانك بدنيا مسافة عليها آخرها حد كفان هاي تربطنا حتى وحوش إن يعني إن ترى محلها أنا كسو أنكرنا حتى وحن كسو أنكرنا محيط إني متعنين سي إني رس بدنت إني سكده حجين سي وحن كسو أنكرنا ما إيش حبرت دي هو دي ولا شيء من يحزن فيرنا هدوء علىهم مركا إن سامين بكوية شيء marka population growth rate Ethiopian aan tartan kula jirnaa marka waa in dadana Afrikaan dadkeen aan gursan karin marka waa in loo guriyo dawladda khaasatan dadka ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn waxaan ku boorinaa in dadkaas aan awoodi karin masaakiin Soomaaliya kuma aha miskiin ama iskala kor leh dadka intii madaxooda NGO-yada inta ku soo qaata madaxooda hadana waxba siinin masaakiinta aan gursan karin حقي ولا ينقرسدان بعيد عن قبلنا كله قبان محيط إن لقى فكر قرآن كسوق فكر أو فكرتي إن سطة قناة ومد ماشي كجرته ممكن أغاد أقول إرادة ماشي أو جود بود. دقن كا أمريكا نتكلم دقن كا إسقنا دقن كا بحاول تجدا نوعه نقنية دقن كا عقبته كنا نقنية مهور استاجي يقول. أن دقن كا وحواه هرت دقن كا محيط دينته ويسود وينسا وين ديرجلنسا نبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بأن أكمل مكارم الأخلاق إن كلام يعني وحل إيسوس هذا واحد من ديت وحواه ولا نبي صلى الله عليه وسلم إن أمستنيرو أخلاقيات كونكسن مركز دقن كماله كفي عيها وأخلاقيات وناس والثاني ديرجلنا دقن كعربته ودينته أو تمت ساس لو ديرجلنا وهي أكوحني هنا ولا هنا مركنا محيط يردان أما سوريدان إيه واحد درس بحياة دارك كنا قبل لقدي بعيد دارك كنا عدي لو كنا إيه حياة هوتيل كان إيه واحد ترى بدن أو نقف أود كرابة أدوير ياهي بقولك بالثمان سنة من دا أود كرتنا قبلي يورن إيه وذا أنت ذا بدن almost إيه روان حياة وحياة وحاوي واحد شرعة سوجي زي ماهن شرعة واحد ويكهر معنا يقول كي أتكينا لسكو بورنا أو يعمل 10 شباب من استدعاء يكون البيعات فليتزوج ما يلبض حديث بدن يقرأ بدن لسكو بورنا أي كهر معنا مركا محيط وحي يقول وحينا ما في عنه مركا يعني عبياشة دورك كنا دور كسمة كذا واحد قبل كهنا كمن ولا نشرين إلهي كعبصلان إيمان كذا عسكريان محيط قال هذنتي بمركا قار ضد كقار حير هذين يعني بالله هي إن أي قبله أي العكلان يرد أما وحيابك لا يكهلان سيدو كلا لكنك كلا إن صلما ده كرو إن دلني يرد يجا اسكو حجة مركا قار كودينا أقول سوا كودينا أيضا قبله كلا فيرنا مركاسير كلا أيضا كتجعل كلا محيط فعل ما يجبيني إيو ضد كأكليدنا إيو أنت كنا عايو ورفع ما أتبيس هذا جورس تفاعل كقر مرة أو النبي صلى الله عليه وسلم حول هاي جورك ودين تهافكد قف جورسنا هافك إلى أو بقى مرة دين الله شادي يقولون إتاه أو دين تهافكد إتاه والدنيا آخر إتاه فعم كاس مرت فأنت الجورسنا ولد طبعا أكثر مرتي ولا شيء مرك أوفى من عادي النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح إسره مرك فع وككر مرتدي نكاح خير لعجشت سببت النبي قاعد هاي نكاح رقيست عروس يقول رقيستنا وليه مثل عرس وواحد صنع أو صار أو صنع ما كذا أو في عن أو يعني حفلة عرس وواحد في عن لكن خير النكاح أيسر هو سيمبري وحي مركز معقول هو قفكين أو ذكر إسرافي مبذر من عين ولا مبذر تبذير إله إن المبذر كانوا إخوان الشياطين مركز أنا إله يقول أشياء ممكن درجة له أرسنايو مويس مبذر نمهن
فان لأجله مركا أروس كا لقى شكي الله يابا يمهم مع مهمة أروس في عين النقطة وخيرون كا يسر كفعناها يسر هلا قد يجو قرص سيد ويرلو جبين كر يقف عن كليفين هلا قد يجو خير الأنسي. دقن كهلا بنيج. ويه إن عقبت كلها ترممتي وتكور أما إن اللي يرهدو اسمه جينو سومالي ذو حال اللي يرهدا طبعا وكبدنت oo qofka markii guurka raba inuu guursado meelaha ugu badan ee la iska eego waxa kamid ah qabaa'ilka iyo qofkan isirka iyo meesha ka soo jeeda tan oo kale maxad ka tiraado horta ismageeda carabtii nooga timid qabyaalada guud ahaan oo ismageeda ka mid tahay waxay tahay xasna carabtina dhaqan carbeedkii inoo soo guuray ka mid tahay maxay ahayd دقن كيسان كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بأن أكمل مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق ذي وحي كسر حريه وحماية دينتي لا دقال أنت بابيس أيو كم ده اسم الجيني ده عربتي اتقيني أو تنهد عن أنا كان قانع لأجل ذلك سو النبي صلى الله عليه وسلم بابي وسجوري ده حاول حبلو يعني كبده أو هير قريشنا أو لانديرياله قريش ويلي لفيال لانديريال قبيلة لانديريال كسيه أو حقوري داد من مدو أو حبشية أو عضومنا أو تمني لوهستي قف بن كستو بن آدم شرف اللي إله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم ما وصلهن ريهبل ما وصلهن عرب ما وصلهن رجالبات ما وصلهن صومال قبيل هبل ما وصلهن إلى ولقد كرمنا بني آدم وحكم الآيات كلها إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتقاتلوا لمدن لتفاخروا لمدن أنا لاندير أنا ترى كنت فخاتر كفانت لقمدين أنا كنت أنا كنت دينا أترادو حتى كنت قارنت لقمدين محاولة للتعارف الناس كأقصد هيبلكي وهيبلكي هيبلنا قبل قبيل هيبل هنا هيبل كل سعوت بس مركب ما سمعنا عمل عرضت مركب قبائل كيسكو كل سريسي جريني عرضت أيضا اللي يعلم مركب محل وقصي دار انتاس لتعرف محل وقصي دار إن أكرمكم عند الله أتقاكم كين يذكو كرامة كين يذكو فعن أو محاية كان قال لك فعن محاوية كان ريه بالكرستي أو لا إرادة إيمانه كان إلهي سفعن أو عبصده أو على سفعن أو دورصده إن أكرمكم كين يذكو فعن عند الله الأيتز أتقاكم قال تتكان أنا دتك الدلين دتك الديد اللي جورسين دد مدلان دجالسكوا كم قاب تقاتان ولي وتكم قاب قاتين محيط وعدد حرفت له أديك نقطة محيط هديان له عقب كأن كل كاستعمال الله سمينا سيد متيها محيط صحمن كاب وليش دكسي وحلو كرنا دري لي هذا وحلا أديك كانت كمتين كبرنا طلعن محيط waxyaalo badan oo manaaficna weelihiin dadka direena maahano boqolaalka sano aan ka sheekano reebel bari nagu soo duulo geel intaas ay qaatay intaas wiil naga dilay la dhaho ma ahan dadka laga naawad galo oo innabi sallallahu alayhi wasallam al-muslim man salima al-muslimin bi lisan wa yadi dad waxa waaye nabdoon bariya hadda kor awaa san sameeyay baqtiyo cuna iyo waxa sheeka barley oo diintana sal yaraad kuma lahan imaam Shaafici wuxuu qabaa Shaafici waxa qabtaa maxayad in qofka markii guurka in la fiiriyo maxayad dhaqanka تصالحان قبل الربادي أي ويل رمياله أما لو في الرميال الربادي كلا يعني مكافأة واحدة قبان مكافأة دقن كاس كم النقطة كده مكافأة كم وضع ريبل كم وضعنا حواي لو سيسكو فهم كرت الربادي رميال مش فاهم كلام قبل بوسنيا ودلتي أو مسلمة أو يوروبيانة يعني وصومالي أفريقيا إساسكو فهم وعدكتها دقناها حقا إني كلفقنا لهان يعملها يو markaas mukaafacada taas laga wadaa reehbel meel ay ku qoran tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dinkiisa in lagu been abuurtana maahan aad baad mahadsan tahay Abu Bakar Cabdi Cali ugu dambeyn marka bal halka si kooban
si caqabadahan afarta looga gudbo. Mid waxaa tiri waxbarashadu waaba ka soo hadalnay dhaqaalaha, dhaqanka iyo is-takooristaas. maxaa isleedahay xalku uu yahay oo aad ku taran halka mid kasta markaan ka soo hadlaba halka waa raacsiinayo kan wax baranayna waxbarashada caqabad kuma guurka ogaado kan maxay xatna marka qaar shukaansiga xataa caqabad u arkaan moogtahay ardayda dadaaleyso kaalmaha raadinaysa buugi dhisida qoyska ku qoran tahay jadwalka shukaansiga marka maxay ahayd caqabad ma ahan saan sheega waayo wiil yahay gabar yahay reerkaagiina maamulato ina waxa barashada dhameystirto labadaba isku keen kartaa saan ku sheegay yeeli kartaa maxay ahayd dhaqankana waxaan leeyahay gabar yahay faca laguma tibin umana liidanin nikaax fiican oo ay saru khayru la khayrun nikaax ay saru sama adiga raaliyo oo maxay fiican oo نيوز على الدنيا متاع وخير المتاع امرأة صالحة إن نقتنا زوجة صالحة كوم هما إن أروسك على غشك إن قبلها محيط على ترتميسيد إن ما كيابان قف ماديو العتب بس حقوقي ميها نقول انسترومنتاليستا نقول قف عتنا إيمان له أو دين له أو عقلية ميزانية مركب محيط عبادين wax ka qaatay gabar iyo hooyo wax laga sii kuun la januuriyaano la jirtay marka guurka caqabad laga dhigay hadii kale meesha qodba sare iyo dhibaatooyin iyo wax badan ay maana gabadha in uu raado lagu inkaro iyo mashaakil badan culus badan shakhsiga ku soo wajahay marka laga soo tagay ayada dhibaatada ay guur la'aanta ku haysan iyo wiilka dhibaatada guur la'aanta ku haysan iyo marka laga soo tago iyo doobnimada xanuunkeeda marka laga soo tago oo la ajli dalka nabi sallallahu alayhi wasallam u dhahay ya maasha nasdacmikum في الزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم هؤلاء فإنه أقض بالبصر وأحسن للفرج مركا الشهوة حنجني سقفك جورك حالة الدواء إن لقى شيء عابي أبايو تكور كان هالإسكده إله لقى عرصه بالله عليكم تذكر نبض له أو حرفة له أو أقوانت له أو دخلها سميناه أو industrial revolution كي إنجليز كسر بالعاده يجرب محكومة بري روسان dariiqda taxaati waxa la sii hormaray dadkaas aan leenahay tomaal waayabka aan leenahay in business ideadoodii in marka investment xooggan loogu sameeyo oo la dhiiri geliyo warshado waaweyn noo sameeyaan banaanka wax u dhoofino dhaqaaleyn xoogeysto Soomaaliya u baahan in dulmi la xaqiro oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka dulmiga waayo dulmiga waa wax wadanka u burbursanaya marka aan ka diina dulmigaas waa guursanayna Ilaahay aan ka cabsano dulmiga aan ka diino wiili gabar nasab iyo kuwa nasab dhiman lagu sheegayo oo la dulminayo maxay tahay hadii is jeclaadaan hal isku ogolaado waalidiinta khaasatan Ilaahay ka cabsada odayaasha culimada diinka siyaasiyiinta dawladda waxaasna u ka shaqeeya wallahi aakhirada kale waalidiin weydiina وهجاج آد بوم هسين هاي أبو بكر عبد العالي أيها برامجك قيسكال تضباط كان مرتي إنه جوها وتكون هسنت النجستيال إذا كنا مقال كنا برامجك تانية كل النمو وأحمد عبسي ودله نبدينا